jilidu iyo in aad ka qosleysiiso waa shay aad u adag isla markaasina qalbiyo kala duwan oo ay ku heeran yihiin marxalado kala duwan in aad farxad geliso aad ayay u adag tahay. haddaba maxamed oo lagu naanayso qurux ku dhiigle iyo sidoo kale Jack ayaa waxa uu caan ku noqday ka qoslinta kumanaan Soomaaliya oo ku xiran page-kiisa Facebook iyo sidoo kale YouTube-kiisa iyo sidoo kale barta aalada TikTok oo uu ah meesha ugu badan ee uu dadka kaga qosliyo. haddaba waa kuma qurux ku dhiigle? tani waa sheekada qurux ku dhiigle. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان سلامة TV CNA TV مقعيقة ومحمد بشير محمد عبد الرحمن waxaan ku dhashay muqdisho isbitaalka banaadir waxaan ku soo barbaaray xaafadda buulixubey nawaaxiga ceel qalow waxaan waxbarashadeeda ku soo qaatay dugsiga dhexe iskuulka hoyga xamar dugsigeygii dhexe in yar iyadoo ay ka dhiman tahay iyo dugsigeygii sarana waxaan ku qaatay Alpha Primary and Secondary School kilometer 4 in muddo ana ma moogani dalkii hooye balse qalbiga waa ku haya naanaysteeda ama magaca halhayska ii baxay waa Jack ama qurux ku dhiigle labadaba magacii masiibo marbay baxaana siyaabo iyo amuur gaar ay ugu baxday iyo qaarna kaftan ka raacaya qaarna ka raacaya anigoo mararka qaar jeclaa filimaanta westernka inaan ku daydo as in director. qurux ku dhiigle kaliya ma aha nin intaas ku eg oo waxa uu qabtaa shaqooyin kale oo kala duwan sidoo kalena inta badan waxa uu garab istaagaa dhalinyarada. marka laga soo tago intaasi goormay ku dhalatay qurux ku dhiigle samexay tahay qisada ka dambeysay in uu soo galo social media ama baraha bulshada? horta aaladan TikTok aaladii igu horeysay waay oo aan magac ku yeeshay waana aalada igu followers ka badan 700k wax yar iga dhiman dadka TikTok just dad waxay u soo galaan for the sake of fun inay majaajilo ka sameeyaan dad waxay u soo galaan in ay stress iskaga baabiyaan aniga culeysay dhanka family ahaye ama personal stress ahaye aan waxaan jeclaystay inaan bulshada fake smile wax la dhahay aan siiyo farxad qiyaali ah si aniga qalbigayga aan farxad u helo dadka hadda waxay aaminsan yihiin inaan aniga farxad siiyo laakiin waqtiga aniga farxad u baahna markaan commentiyadooda arko markaan like-gooda arko dawey dhiirigeliyaan anoo waqtiga hard life ku jira nolol adag haddana iyaga farxad ka heli jiray dhiirigelin markaan arkaano wadada leegu salaamayo waa ku taageera leedahay waan iloowi jiray xaaladda ama nolosha adkeyd aan ku noolaa. horta meel markaad soo geshid ammaan iyo caay intaba waa filaysaa ruuxa biniaadankana markuu wax yahay waa markuu hater leeyahay iyo dad ku jecel uu leeyahay waayo damo aad wax tahay waa damo aad labada dhinac dhan walba aad wax ka wadatid qof ku jecelna waa jiraa qof ku necebna waa jiraa anigana saan qiyaasay waxaan isleeyahay shakhsiyaadka ugu yar inta haterka haysta ama inta necban haysataan ahay waxyaabaha igu dhibka badnaana waxaa waaye mararka qaar waxaad arkaysaa adoo hadafkaada u yahay dadka inaad ka farxisid ayaa qofa iskaa caynay qofki wuxuu ku leeyahay adduunka ninkaana ugu nacbanay haddana falow ku yahay reasonkuu falow ku yahay ma inuu maalin walba ku caayaa mise inaad u soo jawaabtid oo aad dhahdid walaal maxaa igu caynaysaa u rabaa that's why dad qaar waxay jiraan waxay ku aflagaadeynayaan inaad u jawaabtid aad xanaaqdid meesha ay follow iyo like iyo magac ay ka sameeyaan dadna waxay ku aflagaadeynayaan waaba qalbigooda xadaaradii farxadda dhan ka maqano aflagaadii u saaxiibiin marka taas horta TikTok laba way jirto TikTok YouTube wax ma dhaamo waayo mararka qaar editan uu leeyahay transition uu leeyahay muuqaalo waxaa jiro editan hal iyo laba meeshan soo saari doona muuqaalo waxaa jira editing galay cutting galay sound effect aad ku dareysid oo markaa majaajilo sameynaysid ama wax aad reaction ka bixinaysid ana waxaan ahay shakhsiga ugu horeeyay as individual kaligiisa soo TikTok ka soo dhaxalay waagi hore TikTok waxaa jira app oo music ah ana waa ku cusbaa musiga jiray iyo team in loo majaajilo loo sameeyo laakiin san qiyaasay qofkii ugu horeeyay TikTok ka soo dhaxalay ana aha qofkii ugu horeeyay hees reaction ka bixiyo oo TikTok as iyadoo ay 60 second tahay in hees aan reaction ka bixiyo aan la kaftaman ana ugu marka waa dhib badan tahay. qurux ku dhiigle
inta badan waxaa lagu garan ogyahay muuqaalada marka uu jilayo in uu si comedy ah isagoo faanaya ama se ka qoslinaya dadka uu sameeyo. haddaba waxaan su-aal ka weydiiyey jaakadaha ama dharka uu kala bedelayo iyo sababta keentay iyo waxa uu uga gol leeyahay. horta comedy-ga markaan shaarka aan wata day waxaan markaan dhahay inuu dadka waxay u maleeyaan nafteyda inaan ku ammaanahay, laakiin ujeed iyo hadafaan ka damacsanahay. hadafka aan ka damacsanahay waxaa jiro boqolaal dhalinyaro ah maanta adduunka ku nool oo nolosha ka dhacay, oo qaarkood farxadda aan dhalinyaronimo maanta aan haysanin. gabdho badanoo waxaa jira adduunka maanta nolol dhistay, guur iyo hami lahaa, single mother ah maanta ninkii garabka u ahaa cidlo uu kaga tagay. wiilal badanoo waxaa jira iyagana maanta hami lahaa inay wax bartaan oo nolosha hadaf ka gaara lahaa, oo maanta nolosha ka dhacay balowd wadada isticmaalaya. marka aniga markaan is ammaanaya shakhsiyan hadafka aan leeyahay waxaa waaye dadka markay arkaan ruux naftiisa ammaanaya, ku qanacsan, faanaya, faraxsan, wuxuu isleeyahay why this guy uu habi u yahay adiga aadan habi u ahayn, why uu ninkaa u faraxsan yahay, farxaddu ninkaa ilaahay si adiga maxaa kaa qaaday. ruuxa a lot of question markuu naftiisa weydiiyo ama su-aalo badan isweydiiyo wuxuu bilaabaa marka su-aalaha inuu jawaab u raadiyo. jawaabta uu raadinayo waxay noqonaysaa adiga role model inaad u noqotid, asagana uu dareyskii iyo noloshii qurxooneed qurux kudhigla qaabka u nool yahay wax ka bedel. wadada ha taagnaanin sigaar ijaad ha ku dhuuqin, wadada ha taagnaanin ninkii hadduuba kaa tagay ku kala nin Soomaaliyeed ma raba ha dhihin life is going on, marka nolosha wax ka bedel. that's why marka majaajilada u sameeyo. luuqadda qalaad ee Englishka sidii isku yihiin qurux ku dhiigle. mararka qaar waxaa waaye when I was learning English language, a little skinny behind the camera, he was in your mother's stomach. hadda waxaan ka wadaa ninkan tubada u eego kaamirada gadaasheeda taagan markaa ingiriis badanayay boxku ku jirayaan ka wadaa. ereyada uu ku hadlayo kama aha in uu Englishka garan karin, balse waxa ay ka tahay comedy oo dadka ayuu kaga qoslinayaa. haddaba qurux ku dhiigle maxaa ka xanaajiya ereyga af Soomaaliga ah ama hadal lagu yiraahdo oo ka xanaaqo maxaa ka mid ah? horta aniga hadallo waxaa jira in natural qofka uu ka xanaaqayo, in waalidkay la caayo, in shakhsiyadeyda loo gofo, laakiin intaas waxaan ka sii nacbanahay ruux yani ii arka inaan ahay ruux qabiilista ah. yani dad qaar waxay ku arkayaan mawduucaad ka hadlaysaa, mawduuca markaa ka hadlaysa waxay u malaynaa inaad dhan u jaranjeerto. yani tusaaloo kale qowmiyad meel degan aad la kaftamaysaa, wuxuu u arkaa inaad qabiilkiisa wax ka sheegaysa. waa hadallada ugu xanuunka badan aan arko social media. inta kale waa maalin walba lis dhahaa oo waxayba noo noqotay bishaar aan gashano, balse aniga dadku waxaan dhahaa ruuxii amaana ama ruuxii amaana waan dhaweystaa, laakiin ruuxii caay qosol iyo ooyin waa isku mid. waayo social media wax walba waa u joogtaa. marka dadka waxaan kula kaftamaa haddaad aysid commissionka igu badanayo ajiraan ka helaa. waxaa jirta su-aal la isweydiiyo oo ku aadan in uu yahay nin ka shaqeeya oomada ah isla markaasina uu ilaa hadda weli ka shaqeeyo. haddaba sheekadani ayaa waxa ay qayb ka tahay sheekada qurux ku dhiigle ee oomada ay ku jirto. may horta waagii hore waa ka shaqayn jiray, dadaab waxay u maleeyaan shaqadani oo inay caay tahay. wax ka sharaf badan ma leh dhididkaaga xalaasha markaa cunaysa. yaa youtube dhidid xalaal iyo dhidid xaaraan wax walba waa yaalaa, laakiin waa shaqada kale waa shaqo xalaal ah. waa ka shaqayn jiray, haddana waxaan ka ahay COO. haddaadan ka saydinna COO waxaa laga wadaa Chief Executive Operative ila xameed iyo agofini. yani managerka ugu weynaan ku jiraa, office dhan kasto ii kala xiran, wiigii 2 mar 3 mar aan ku tuurtaa. waagii hore bahasha jugtaanka gadin jiray oomada oo masaajeyn jiray, laakiin hadda anaa Eric ili Willy aan dhawahay anaa wax dirdirooyay. maasha Allah waxaan leeyahay shaqa sharaf leh, shaafta ceeb. dardaaranka qurux ku dhiigle ee dhalinyarada ugu soo jeedinayo maxay tahay? horta ruuxii hadaf leh, ruux walba social media saameyn ku leh, positive and negative inta buu soo arkay, hard life na soo arkay. marka haddaad rabtid social media inaad magac ka samaysid, nolol adag marka hore ku bilaab. laba midaan kaa codsanaa inaadan weligaa qof bini aadan aadan dhihin muuqaal community ii share garay. waayo 40,000 ama 50,000 oo qof caan ah madaxiisa kugu daawato waxaa ka qaalisan 2 qof fikir ama hadaf adiga aad damacsan tahay kugu soo raacday. dardaaranka kale aan siinayo waxaa waaye qof aanan social media ku jirin
balse hamigiisa u yahay social media inuu caan ka noqdo waxaan dhihi lahaa weligaa ha ku fikirin inaad caan noqotid yani xaasinimo iga ma ahan caan markaad noqotid farxad waa ka quusanaysaa waxaa arkaysaa hooyadaada ama aabbahaada 7 jeer 5 jeer kusoo wacay asagoo bin kuu saaran aadan message callkiisa arkaynin waad dareemi kartaa waa xaalad adag familigaada oo waqti kaaga baahan inaad la qaadatid ama group family aad leedahay oo wax laga yaabaa week hal cod inaad dhegaysid ama 2 cod mashquul adduunyo marka waxaan ku dhihi lahaa haddaad farxadda aad haysatid culays kugu hayso social media soo gal waxaa arkaysaa ruux kugu mashquulay waxaa arkaysaa ruux hooyadaada caynaya ama walaalkaada caynaya ama walaashaada caynaya aadan u jawaabi karin awooddeedana lahayn waayo haddaa u jawaabtid screenshot ku daba yaala marka farxadda haddaad raadinaysid noloshaada private ku qanacsana social media soo gale way adag tahay qof caan ah isla markaasina bulshada aad u taqaano haddana qalbi wanaagsan leh intuu dadka soo dhex galo waqti la qaato haddana u sheekeeya sida qurux ku dhiig leh oo kale xudayfa cabdiraxmaan cali CNA TV Nairobi.